Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Soo dhawaada mar kale. Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay ninkani. Ninkani waa nin aad u cunto badan ama dadka aadka u cuntada jecel leh. Walow aanu haysanin wax uu ku iibsado cunno. Wuxuu sameeyaa cunnooyinka ayuu xaafadaha ka soo xadaa. Haddaba ninkan sheekadiisu waa sheeko aad u qosol badan. Waxaana kadeeday oo dhibaato ku haysa waa calooshiisa oo keliya. Waana ninka aadka u caloosha weyn leh. Haddaba sheekadu halkan ayay ka bilaabmi doontaa. Sheekadani runtii waa sheeko aad u qosol badan. Hadda ninkani wuxuu hortagay guri ka mid ah guryaha tuulada uu soo degay dhowaan. Guryahan ma yaqaanaan ninkan waa ku cusub yahay. Wuxuu leeyahay hadda waxaan u baahanahay cunno, hala i siiyo cunto. Oo wuxuu u baahan yahay cunto uu cuno. Calooshiisa ayaana dhibtay ninkani. Gabadha ayaa u soo baxday waxayna ku tidhi maxaad u baahan tahay? Wuxuu ku yidhi cunno ayaan doonayaa cunno i sii. Kadib gabadha inta sidaa u eegtay ayay ku tidhi wax cunno ah haba yaraatee ma hayo. Ninkani ma aha nin saa ku tagaya. Waxa uu ku celiyay cunnada aad ayaan ugu baahanahay oo waan gaajoonayaa cunno i sii. Gabadha waxay ku tidhi intay si adag ula hadashay wax cunno ah haba yaraatee ma haye orodoo iska bax. Kadibna albaabka ay soo xidhatay way iskaga tagtay. Kadib intuu saa u istaagay buu ku yidhi aniga ku baryaaya ayaa kaa waalan. Waan aqaanaa cunnada saa looga qaato xaafadaha. Laakiinse wanaag ayaad igu siin weyday anaa garanaya waxaad igu siinayso. Kadib ninkii waa ninkanoo wax kalaataba maaha noloshiisu. Waa tuuggii cunnada. Waxaana loo yaqaanaa tuugga cunnada. Hadda wuxuu rabaa inuu ka soo daba wareego guriga kabacdina uu soo qaato cunnadii. Kadib gurigii ayuu soo galay isagoo qoslaya. Wuxuuna ka soo galay dhinaca dambe. Hadda cuntadii oo meesha taal ayuu arkay. Wuxuuna rabaa inuu cuntadan saa ku qaato. Kadib gabadhii ayuu saa iskaga eegay. Iyadoo aan meesha joogin ayuu arkay. Kabacdina wuxuu isku dayayaa inuu cunnada saasi ku qaato. Ninkii cunnadii wuu soo qaatay gaf buu soo siiyey. Wuxuuna ula sii cararaya xaggan iyo gurigiisii cusbaa ee ku yaallay tuuladani. Ninkan waa tuug, laakiin tuug lacageed iyo tuug kala midna ma ahee waa tuugga keliya tee soo xada cunnada. Calooshiisa ayaana dhibtay. Gabadhii si degdeg ah ay guriga u soo gashay. Kadibna waxay aragtay cunnadii oon meeshaba oolin. Kadib waa ay yaabtay. Waxaana is weydiisay cunnadii maxaa qaatay. Waa ay xanaaqday. Waxayna is leedahay niyadda ku haysaa bisadii guriga joogtay ayaa cunnadii qaadatay ee cid kale may qaadan. Mana dareensan oo isma laha ninka imika aad u diidaysa ayaa cuntadii xaday. Ninka dhibaatadiisaba waxaa weeye xadista cuntada. Cunto kasta oo u arko waa inuu soo xado. Gabadhan aad ayay u xanaaqday. Hareeraha ayayna eegtay. Weli waxaa ka dhaadhici la bisadu miyayna saxankan ka tagteen. Saxankii xataa meesha ma yaallo. Aad bay u shakiday. Waxayna is weydiisay maxaa dhacay maxaa cuntadii qaatay. Gabadhii weli waa ay taagan tahay oo waa ay yaaban tahay. Ninkii haddaba waa kaalkan iska yimid. Saxankii uu soo qaaday cunnadaha dhammaantiis hal mar ayuu ismariyey. Waxaas waxba uma tarayaan. Wax dhinacna kaga dhacaya maaha. Hadda wuxuu ku fikirayaa halkeed ka soo qaada cunto kale. Ninkani dhibaatada haysato keliya taa waxay tahay waa calooshiisa. Calooshiisa ayuu tuugu noqday. Ninkan hadda wuxuu ku fikirayaa haddaba guriga xiga ee aad soo dhici kartaa waa kee. Tuulada waa uu ku cusub yahay. Waxna ma haysto. Waa ninka caloosha weyn leh ee da'da ah weliba. Kadib ninkii waa uu soo dhaqaaqay. Waxaana u soo dhaqaaqay dhinaca guryo kale. Isagoo aad isku gaabinaya iska dhigaya mid miskiin ah. Hadda wuxuu u sii socdaa oo uu doonayaa inuu soo qaato waa cunno. Wax kale uma socdo ninkani. Calooshiisa aadka u weyn ayaa dhibaatadaas oo dhan ugu wacan. Ninkan hadda wuxuu u sii lugaynayaa oo uu doonaya inuu soo qaato cunto. Inkastuu ogyahay gurigii hore oo uu ka leexanayo oo uu rabo guri kale inuu cunno ka soo qaato. Wuxuu ogaaday tuuladani in ayna cunnada dadka siinayn haddii si walba loo baryo. Markaa wuxuu go'aan ku gaadhay inuu cunno walba soo xado. Ninkan wuxuu dhibaato weyn ku hayaa tuulada durba. Gabadhan waa gabadh ka mid ah gabdhaha ku dhaqan tuuladan. Xaafadeedu waa halkan ama gurigeedu. Gabadhani waxa ay karisay cunto aad u fiican oo aad u tayo badan. Hadda ayay rabtaa inay cunnada soo dhigato qolkeeda si ay hadhow u cunto. Ninkan tuuggii daaqadda unbuu kala soconayaa marba cuntada meesha la dhigayo. Markaa kabacdi waa uu soo qaaday cuntada. Gabadhii waxay timid qolkeedii. Cuntadii ayayna iska dhigatay oo aayar ayay iskaga soo dhaqaaqday cunnadii si ay u soo qaadato agabkii ay ka mid ahaayeen biyaha iyo waxay ku cuni lahayd. Gabadhii markii ay saa uga dhaqaaqday gurigii ee ay tagtay qolkii ay ka soo qaadan lahayd weelka biyaha ku cabbaysay waxaaba soo galay ninkii caanka ku ahaa xadista cuntada. Kadibna gaf ayuu soo siiyey oo gebigeedu waa uu soo qaatay cuntadii xabadna kamuu iman. Isagoo aad u qoslaya oo aad u faraxsan maadaama calooshiisa uu helo wax uu cuno. Isagoo in yar ka hor wax kala cunay ayuu uu hadda halkaas sii socdaa. Gabadhu waa ay timid meeshii waxayna u timid meeshii cunnada dhigtay
oo bannaan, kadibna aad ayay u xanaaqday, waxayna tiri cunnadaadii maxaa qaatay? Haddana dib ayay u shakiday, waxay isweydiisay macal saxankii waxa qaatay muxuu yahay? Marna niyaddeeda kuma soo dhacayso qof cunno xada oo tuuga ayaa aagga jooga, waayo kumayna ogeyn marka hore, haddana kuma oga. Waa ay yaabtay, gabadhii xaggan ayay u kacday madaqii waxayna isweydiisay adigaa khaldan malaha, oo waayo wax cunno aba maad soo dhigan meesha. Ninkii odayga waa kana, waxaas oo weela meesha ka muuqda, isaga ayaa ka dhameeyey cunnadii, isaga ayaa cunto ku soo xaday dhammaantood. Weelkani waa weel aad u tiro badan, waxaasoo weela wuu arkayaa, wuxuu niyada ka leeyahay weli kow lama joogo, weelka ma soo daadin karo oo dibadda uma soo saari karo, waayo waa la ogaanayaa haddii kale. Ninba wixii dhibay ayaa dhafoorka kaga yaal bay dhahaan Soomaalidu, ninkan waxaa dhibay waa calooshiisa. Ninkan haddana wuxuu durba ku fikirayaa saxanadan uma muuqdaane cunno kale meeshu ka soo qaadi lahaa. Gabadhani waa gabadh kaloo iyaduna ka mid ah gabdhaha tuulada ku dhaqan. Waxa ay cunto dul dhigatay miiskaasi, kadibna aayar ay iskaga soo baxday oo qolkeedii kale ay iska aaday. Ninkii odayga ahaa durba isagu wuu soo ambabaxay, waaba kanba meel fog kama eega daaqaddu muu dadka ka soo yar eegaa, kabacdina marka laga baxo waa uu soo galaa un aayar. Ninkii odayga ahaa ee socodka wanaagsanaa waa ka hadda soo qaatay cuntadii, waa ka cunnadii la soo baxay, wuuna iska sii sitaa, wuxuuna rabaa inuu gurigiisii geeyo weelka badan ay yaaleen ee madhani. Ninkan odayga ah kadeedka ama dhibaatada haysataa waxay tahay waa cunnada. Isagoo aan wax cunno ah, isagoo aan haysan wax dhaqaale ah, ayuu mar walba wuxuu u baahan yahay inuu cuno cunno ka badan tay bini'aadamku cunaan. Gabadhii waa tan aad bayna u xanaaqsan tahay, waxayna isweydiinaysaa meeshaad iminka dhowr daqiiqo ka hor aad ka dhaqaaqday ee aad cunnada dhigatay maxaa qaatay cuntadii. Kadib gabadhii madaxa ayay qabsatay, wana yaaban tahay, ilaa xad ayayna xanaaqday, kumayna dhaqaaqin oo way ka shakidayba, waxay isweydiisay waxa cuntada qaatay muxuu yahay. Kabacdi wiilkeedii yaraa ayay u yeedhay, kaale bay ku tidhi maxaa cunnadii ku geeyey aad u qaadatay? Ilaa cid kale guriga ma joogtee, ma cunno la'aan ayaa ku haysa, ayuu wiilkii yaraa ugu hanjabtay. Kadibna wuxuu ku yidhi wax cunno la yidhaahdo anu mabaan qaadan hooyo, maxaan ku falayaa cunnada, anu dibadda ayaan joogay, wax cunno ana maan qaadan. Kadib waxay ku tidhi taasi caqliga ma gelayso, cid kalena guriga ma joogta ee adigunbaa qaatay. Kadib gabdhihii tuulada ayaa iskaga hor yimiday meel dariiqa, kadibna waa iswaraysteen sidoodii caadiga ahayd. Kadib waxay isweydiiyeen dhowr su'aalood ay ka mid yihiin oo anigu shalay toole waxaan waayey cunnadii aan guriga dhex dhigtay macalaa weelkii ay gabadhan tidhi. Kadib dumarkii kale oo yaaban ayaa ku yidhi annaguna sidaasi la mida waanu weynay ee maxaa jira. Gabadhan ayaa tidhi ma garan karo ee cunnooyinkii waa la urursanayaa, waxaan cunnada qaadanayana ma garanayno, cunnada marka la kariya weelka lagu rido unbaaba weliba la qaadanayaa. Gabadhii kale ayaa ugu jawaabtay ma garan karno waxani, laakiin waa inaynu ogaanaa, waayo maxaa jira xayawaan xaqaata ayaa jooga xaafadaha. Kadibna waxay isugu jawaabeen may. Carruurtii ayaa la weydiiyey oo lagu yidhi midinka cunnada guranaya maya. Dumarkina aad ayay iskula buuqsan yihiin oo aad ayay iskula muransan yihiin, waxayna la yaaban yihiin waxaan urursanaya cunnadoodii ee guranaya, welina ma ay ogaan waxa cunnada qaadanaya inuu yahay ninkani aadka u caloosha weyn leh ee calooshiisa tuugga u noqday. Kadib dumarkii waxay isweydiiyaan ay hadalkii isku celceliyaan ay yidhaahdaan waa inaynu raadinaa waxa cunnada inaga guranaya maadaamaynaynu garanayn waxa uu yahay. Dumarkan oo aad ula yaaban qisooyinka ku dhacay dhammaantood, saddexdoodana waa ay ka siman yihiin, ayaa waxaa dhinaca Aasha soo maray ninkii tuugga ahaa ee cunnada raadinayay. Isagu warkan ma hayo, ciidankan meesha taaganna aayar baa la iska ag maray si cunno loo soo qaato. Kadibna gabdhihi way dareemeen qaar ka mid waxayna yidhahdeen waa ninkan horta wuu cusub yahay, xaguu ku socdaa, bal haynu dayno meeshuu tago, malaha waaba isaga kax qaataaye. Kabacdi laba dumarkii ka mid ah ayaa ka soo daba dhaqaaqay ninkii, kadibna waxay ugu yimaadeen gurigoodii. Waxayba arkeen ninkii oo qaybtii cunnada la dhigayay cunno ka raadinaya. Kadibna waxay ku yidhahdeen maxaad ahayd, xaggeed se guriga ka soo gashay? Waxba maan ahayn buu yidhi, waan iska socday ee cunno ayaan raadinayay oo cunto ayaan u baahanahay, cunto ma haysaan. Kadibna gabadhii hore ayaa ku tidhi anu waan ku garanayaa, waxaana tahay tuug weyn, waayo maalintii hore cunnada waan kuu diiday, laakiin ma aanan filayn inaad guryaha soo gasho oo cunnada guranayso. Hadda ayaan booliis kugu yeedhinaa, waa inaadan meesha ka dhaqaaqin ayay ku yidhaahdeen. Kadib intuu naxay odaygan laba oday calooshiisuun u darnaaya oo hareeraha eegay ayuu ku yidhi mayna sidaa ha samaynine iga dhaca.
kadib dumarkii way ku qayliyeen waxayna ku yidhahdeen cunada maadagan ku karinaa mise carruurtayaan u karsanaa. kadib odayg dhinac walba wuu eegay wuxuu sameeyeen uu garan waayay dhinac u baxana ma jirto. gabadhihiina aad ayay u canaananayaan iminka ayaanu ku ogaanay inaad tahay ku yidhahdeen tuug. kadib waxay u soo saareen bannaanka waxayna ugu yeedheen booliskii. booliskii marka arrinka loo sheegay waa uu canaantay wuxuuna ku yidhi calooshaada ayaa ku xidhaysa adiga. kadibna wuu ku soo cararay si uu u qabto ninkii. laakiin ninkan caloosha weyn leh wuxuu isku dayay in uu lafihiisa la cararo oo aad ayuu u orday dariiq ayaana lasii eryanayaa. ninkii booliska sidaas ayuu ku eryanayaa ninkii oo wuxuu rabaa inuu soo qabto ninkan calooshiisu dhibtay. ninkii saas ayuu ku eryay ninkii booliska oo uu kaga kaxeeyey xaafadihii. saas ayaana lagaga raystay ninkii caloosha weynaa oo xaafadihii lagaga fogeeyey. sheekadeenna halkaas ayay ku joogtaa ninkii calooshiisu dhibtay. sheekadii ku saabsanayd ninkii ay calooshiisu dhibtay. fadlan haddaad nagu cusub tahay laygta iyo subscribe-ta waa dhankaaga. aad baad u mahadsantihiin.